gudoomiyaha guddiga tahriibayaasha ee dalka ayaa waxa uu sheegay inay uga hortagayaan sharciyo cusub kuwa tahriibiya dadka. Faallada warkan waxay noo soo koobaya wariyahayaga Cabdirasaaq Ibraahim Class. Harafaya waa gabadh 20 jir ah oo u dhalatay deegaanka Tigray, gaar ahaan degmada Raaya, haddaba kadib markii ay la xidhiidhay dilaalinta sharci darrada ah ee dadka tahriibiya ayaa waxa ay ka tagtay hooyadeed oo qof waayeel ahayd iyo ilmaheeda yareed, taas oo ay u tahriibtay inay u soo shaqayso qoyskeedii danyarta ahaa. hase ahaatee heshiiskii ay la gashay dilaalinta sharci darrada ah ayaa burburay iyadoo aan badda ka tallaabin, sababtoo ah waxa ay dilaalintu weydiisteen 5,000 oo ber oo dheeraad ah oo ay markaasi badda lagu tallaabsin lahaa. kadib waxaa dhacday in aabbaheed la soo waco oo lacagta la weydiiyo, aabbaheedna taas aad buu ooga naxay isaga oo dareemay in ay gabadhiisu halis ku jirto, wuxuuna aabbaheed qaan u galay sidii uu gabadhiisa u badbaadin lahaa, iyadoo isla markaasna lacagtii uu aabbaheed qaanta oogu soo qaaday ay Yemen ku gaadhay. Yemen markii ay gaadhayna 20,000 oo bir ayaa haddana la weydiiyey, taasna waa la bixiyey. dabadeed maxaa dhacay talow? Harifaya oo ka warramaysa arrintan waxa ay tidhi, nimanka iyo gabdhuhu hal meel ayaannu wada seexan jirnay intii aannu dhexda ku sii jirnay, haddaba dhibaato aan la soo koobi karin ayaana soo gaadhi jirtay oo ay ka mid yihiin kufsi iyo jiddil. marka dhibaatadaasna waxaa iigu wacan cadaadis iiga yimid xagga asxaabtayda iyo qoyskaygaba, iyo anigoon u arkaynin in aan waddankayga ka shaqaysan karo oo aan horumarna ka gaadhi karo. tahriibka sharci darrada ah ee gaar ahaan dhinaca bariga dhexe lagu tegayo ayaa ah mid ay dad tiro badani ku dhinteen, isla markaasna ay ku curyaameen oo ayna kula kulmaan dhibaatooyin dhinaca maskaxda ah. Commander ku-xigeenka booliska federaalka ee u qaabilsan dhinaca dambi baadhista Commander Balade Katachow ayaa waxa uu sheegay inay dadaal loogu jiro sidii loogu hortagi lahaa gacantana loogu dhigi lahaa dilaalinta sharci darrada ah ee dadka tahriibiya. waana kan isaga oo ka warbixinaya arrintan. ugu yaraan sanadkan waxaan gacanta ku dhignay 235 dilaaliin ah, annagoo markaasi baadhnay xaqiijinayna in ay dembiilayaal yihiin, maxkamadna aan horgeynay. dowladda jamhuuriyadda federaalka Itoobiya ayaa bishii sano ee 2004 dhistay gole u xilsaaran ka hortagga tahriibka sharci darrada ah, waxaana ilaa heer deegaan ilaa heer qabale hoos loo dhaadhiciyey howlgalladaas. gaar ahaanna waxaa dadaal loo galay sidii dembiyadaasi looga sifayn lahaa deegaanada ay sida gaarka ah uga muuqdaan oo kala ah Tigray, Amhara, Oromiya iyo Koonfur. gudoomiyaha guddiga ka hortagga tahriibka sharci darrada ah ee heer federaal Mudane Solomon Tasfaye ayaa isna dhinaciisa ka hadlay dhibaatada tahriibka, waana kan isaga oo ka warbixinaya. taniya markii guddiyada hoos loo dhaadhiciyey taniya ilaa heer qabale howlo la taaban karo ayaa la muujiyey, inkastoon la joojin karin haddana in wax weyn laga bedelay tahriibka sharci darrada ah ayaa meesha ka muuqata. haddaba dowladda federaalka Itoobiya waxay dib u habeyn ku samaysay sharcigii hadda ka hor u yaalay tahriibka oo ay bayaan u soo saartay. bayaankan oo baarlamaanka federaalku ansixiyey ayaa noqon doona mid wax weyn ka qaban doona tahriibka sharci darrada ah.